Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Yuusuf Xuseen Jimcaale Madaale ayaa xarunta aqalka dowladda hoose ee Xamar ku qaabilay Dr. Cabdiraxmaan Xasan Cawaale Xabeeb oo maalmihii u dambeeyay xanuunsanaa isla markaana uu hore u booqday gudoomiyaha duqa magaalada Muqdisho ayaa hore u ballan qaaday in uu gacan ka geysan doono sidii xaaladda caafimaad ee Dr. Xabeeb wax loogu qaban lahaa ayaa maanta sahay lacageed ku wareejiyay Dr. Cabdiraxmaan Xasan Cawaale Xabeeb oo safar caafimaad u aadi doona dibadda gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho gudoomiyaha Sheekh Yuusuf Xuseen Jimcaale sidii hore u ballan qaaday inuu qayb ka qaadan doono daaweynta iyo ka warqabta Dr. Xabeeb oo ah nin u dhaqdhaqaaqa mudana ka soo shaqeynayay dadka la xanuunsan dhimirka ayaa maanta gudoomiyaha gobolka Banaadir wuxuu ku qaabilay xafiiskiisa asagoo u fulinayo ballanqaadkii hore uu ballan qaaday maalintii uu ku booqday xafiiskiisa iyo isbitaalka mentalka ee ku yaala degmada Dharkeenley gudoomiyaha ayaa wixii ugu talagalay kaalmadiisa ah ku wareejiyay Dr. Xabeeb wuxuuna u rajeeyay caafimaad degdeg Ilaahay siiyo wuxuuna ku booriyay dadaalka iyo juhdiga ugu jiro wax ka qabashada dadka la xanuunsanaya dhimirka waan ognahay sida loo dayacay Dr. Xabeeb inuu ku ahaa ninka kaligiis u dhaqdhaqaaqa arrimahaas waxaan u rajeynaynaa Dr. Xabeeb caafimaad taam insha Allah inuu noogu soo laabto asagoo caafimaadkiisa dhameystiran yahay si shaqadii bulshada u hayay oo u sii wado maamulka gobolka Banaadir mar walba wuxuu garab taagan yahay Dr. Xabeeb iyo dadka noocaas oo kaleeta ah oo bulshada u shaqeeyo in laga warqabo habeenii maalin laga warqabo la appreciate gareeyo shaqada ay hayaan lana garab taagnaado intaas aan noo balan insha Allah waxaan ku suganahay sidaad arkaysaan oo aan la joogaa walaalkay gudoomiyaha gobolka duqa magaalada Sheekh Yuusuf Jimcaale Madaale waxaa kale oo munaasabadda xiriiri ka ahaa agaasinka maadka ee gobolka Dr. Maxamed Cadow oo runtii qayb libaax ka qaatay bacdama caafimaadka gobolka Banaadir uu mas'uul ka yahay xanuunkayga waa laba donation laba jeer ayaa lay samafalay gobolka Banaadir iyo samafaleen mar uu soo booqday walaalkay gudoomiye Yuusuf Jimcaale Madaale gurigaygu igu yimid oo ku dhex yaala isbitaalka ku yaala Dharkeenley beesana wuu i siiyey wuuna ii duceeyey isbitaalkana wuu kormeeray joodariyaalna waa noola keenay khayr Allah siiyo maanta oo ay bisha tahay 24 Oktoobar 2022 anuu gurigayga hurdaa lee yeeray gudoomiyaha ayaa ku doonayo waxaana ii yeeray walaalkay Dr. Maxamed Cadow agaasinka caafimaadka gobolka markaan imidna waa goobjoog baa ka tihiin maraqaati baad ka tihiin lacag $10,000 ayuu ugu wareejiyey gudoomiyaha gobolka walaalkay Madaale khayr Allah siiyo wuxuu gutay mas'uuliyaddii maanta ka saarayd gobolka wuxuuna igu qiimeeyey waxtarka aan walaalaha Soomaaliyeed maanta aan u soo taray hadday tahay shurun biyoodkii haddii ay tahay cudurkii ka hortagii raybiska ama raabiyada iyo midka hadda aan ku hayo gacanta oo ah caafimaadka maskaxda tani waxay tusaale u noqonaysaa dhaqaajin u noqonaysaa advocate u tahay motivation u tahay dhammaan dhakhaatiirta Soomaaliyeed dal iyo dibad meesha ay joogaan in madaxdeena maanta abaalmarina ay bixinayaan ninkii bulshadaas wax tarinay ay og yihiin waxaan leeyahay aad iyo aad buu mahadsan yahay gudoomiyaha gobolka walaalkay Sheekh Yuusuf Jimcaale